Abdi Nasir Abdi Kontoma, the elect chairman of Chamber of Commerce, Wajir County. Karibu. rugta ganacsiga qaranka Kenya ayaa saakay magaalada Wajeer ku qabtay doorashooyin degooyinka lagu tartamayay ayaa ahaa xilka gudoomiyaha, gudoomiye ku-xigeenka iyo boosaska 9 agaasimiyaal balse ugu dambeyn xilka kale tanaasul ayaa ka dhacay. doorashadan waxay ku soo garoosatay xilka gudoomiyaha. tirada guud ee dadka codeeyay ayaa ah 502 qof, halka 3 cod ay halaabeen. tartanka waxa uu ka dhaxeeyay Abdi Nasir Abdi Kontoma iyo Harbi Cusmaan Cali. Kontoma ayaa helay codad gaarayo 383, halka Harbi Cusmaan uu helay 116 codad. guushana waxay raacday Abdi Nasir Abdi Kontoma. guddigii doorashada qabanayay iyo dhammaan shacabkii ka soo qayb galay codeynta ayaa shaaciyeen in doorashada si cadaalad ay ku dheexan tahay u dhacday. gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga laanteeda Wajeer, Abdi Nasir Abdi Kontoma, ayaa u mahadceliyay dhammaan shacabkii uu codeeyay, wuxuuna ballan qaaday inuu wax ka bedeli doono geedi socodka iyo qorshe howleedka ganacsatada Wajeer si ay horumar ballaaran u gaaraan. عيد وعبد الناصر عبدي كونتوما بعمشتر reer Wajeer maanta waxaan ku tartamay oo chairman of Chamber of Commerce. alxamdulillah ku guuleysanay. waxaan mahad u celinaa reer Wajeer oo dhamaala oo meel walba iskaga imaadeen oo peaceful electionkii noo hagaajiyeen. marka alxamdulillah inaan anigana u shaqeeyo waajibkii saaranna aan ka soo baxay insha Allah maadaama chairman kii maanta ay soo codeen. alxamdulillah ayakana mahadaan u celinaa. marka insha Allah waa inaan ku dadaala wixii oo aan u qaban lahay oo bacimashtir inaan isu keeno Wajir County dhamaala insha Allah. ninka maleemaanta Kontoma xarb uu ka qaaday siyaasad maataas. Kontoma gacan baan ku siinaa wuxuu iga baahan waa la qabanaa laakiin Kontoma yaa leeyahay adaa kursi qaatay qabiil baad ku qaaday. that is maskaxda horta meesha ka bixiya mar ay dhici kartana malaha. members almost over 900. so today bila ilifanyika was ilifanyika vizuri, ilifanyika bila stress, ilifanyika bila ushairi Wajeer ku xisabtay min Chamber of Commerce in meel ay tahay siyaasad. ninkii hele waa reer Wajeer, dadku waa member ka reer Wajeer yaa loola imaanin China miti arrima member chamber mar qabyaalad ku dhisnaanshana by headline waxa ku qoran is not a political organization. galabta waxaan ku soo biiray dadka ganacsiga ee magaalada tan oo ka qayb qaateen doorashadii ay ku dooranayeen dadka u xil saarnaani doono ee chambergan. doorasho aad iyo aad qiimo u leh ayaa meesha ka dhacday. dad taridooda aad ay u badan tahay waa ka soo qayb galeen ma sha Allah, laakiin ammaan iyo si wanaag ayay doorashadii ku dhamaatay. marka aniga maadaama aan nahay wasiirka ganacsiga waxaan rabaa inaan u ballan qaado dadka guddiga oo dadka beec mushtarka ay soo xusheen inaan la shaqeyno una xaqiijino haddii aan nahay dowladda tan countigan iyo Wajeer uu hogaaminaya mudane His Excellency Ahmed Abdullahi inaan wax kasta oo inagu qaadata garab baan ugu noqono sidii dhaqaalaha ama becsharada kor loogu soo qaadi lahayd. horumar noo soo siyaaday haddii aan nahay reer Wajeer. laba nimo walaalo ayaa tartantay. ninkii hore uu ka baxay, nin kale ayaa soo galay. marka ninkan kale oo soo galay waxaan baaq u dirayaa in uu gacan siiyo dadkan becsharada yaryar haysta oo dhulka ku dhacsan oo reer Wajeer oo maamooyinka ay u badan yihiin in uu kor u soo qaado ayaan aad iyo aad aan furtiin ugu farayaa inuu la fadhiisto dadka becsharada uu la tashta uu dhax socdo. waa asaga waxaan ogsoonahay waa nin waqti kasta la heli kara waqti kasta magaalada laga heli kara waa niman la weynayn. aad ugu faraxsanahay doorashada sida ay u dhacday, dib la'aan ayay ka dhacday. reer Wajeer uma ay kala harin, waa la isla doortay ninkanayta. doorashada maanta ka dhacday magaalada Wajeer, doorashada ayada oo Chamber of Commerce يعني dadka becsharaayaasha qabkii uu hayn lahay kursigooda ayaa la dooranay maanta. nin hota khayr Allah si ninka hore ku jiri heer soo galsi meesha. ninkan kale hadda soo galana waxaan u baaqaa inaas isan heer gaarsiin doono
waxaan leeyahay inaad heer gaarsiin doon meesha ayade kujiro Kontama we know him he's a very active boy so inaad isagan heer gaarsiinayaan u malaynaya